هذا قلب كوتاي صباح وناس هذا صباح كوتاي كسودو محا عصب بودكاست ومركز مقالة حلقتين جيمانية محا ما تكفي عني إنه نحله سياسيين تيروا عداقاها إن بدل حسبي ذا شمرين السوماليين كسود شري إن بدل نوح بدل نسود تاعنا وشامع حاج محمود عقا وأها وزيرك مع أنتي تمرته الدولة مدن المسبح عبدي شامع يا دوان كديك روكتي iska casilay kalba sida doonto uu noqo marka wuxuu ku xog waramayaa sababta maanta keentay xisbigii ku soo tabcay ee waxa asaasayaasha inuu ka gadirto jamac ku soo dhawow maxaa cusub waad mahadsantihiin waana dhowahay waana idin mahad celinayaa tiimkiina maxaa cusub postcard jamac dhawaan adiga iyo group isku jira xisbiga kulmiye qaarkoodna ay yihiin golii fulinta ayaa burca kaga dhawaaqay isbahaysiga isbedel doonka bal sharax guud naga sii waxay yihiin بسم الله والحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله تيم كا reer kulmiye ahaa waxay ahaayeen dad isugu jira dhalinyaro iyo waayeel iyo haween tiradoodu gaadhaysay ilaa 100 xubnood oo ka wada tirsanaa xisbiga kulmiye golayaashiisa kala duwan ku jiray golaha dhexe hadday tahay iyo golaha filneed hadday tahay iyo xubnihii xisbiga iyo garboodkii xisbiga runtii oo xilal badanna ka soo qabtay xisbiga iyo xukuumaddaba wax kale ma ahayn waxay ahaayeen team u arkay saluugay garanaysaa murashaxa xisbiga kulmiye xisbiga yagii murashaxa u sharaxan madaxweynaha ee u tartamaya madaxweynaha 5 sanadood ee soo socda in lagaga habboon yahay kaasoo ah madaxweynaha iminka jooga muuse biixi cabdi oo muddo 7 sanadood waddanka soo hogaaminayay ayuun baynu aragnay tiimkaygaasi in xisbigu markii hore runtii waxaan jeclayn in xisbigu murashax cusub murashax aan ahayn madaxweynaha iminka jooga oo dhiig cusub ah oo keen la doorto tiina way suurtagali weyday dabadeedna markii ay caddaatay in intaasoo dhanna waan isgeynay waxaa shirkii burcaa murashaxa lagu soo magacaabay oo lagu soo caleema saaray intaa waxaa la sugayay waxaa laga yaabaa in wax isbedelaan oo murashaxa aynu bedello haddaynu nahay xisbiga muddo inta laga baxay waxaan u malaynayaa ma hubo bishii muddo sanadii ku dhaway maya sanad ma gaadhayso dhowr bilood way saasaan filaya in dhowr bilood tahay waxaa markaa ay caddaatay dhowaan waa kii qaatay markaa madaxweynuhu shahaadadii 13 bishii Oktoobar waa kii qaatay shahaadadii markay caddaatay inaan cid kale suurtagal ahayn inay iska soo sharaxdo ama u tartanto xilka madaxweynenimada ee 5 sanadood soo socota ayaanu aragnay warmadda ka markaa maxawdana markaasaan u aragnay inaanu madaxweynaha oo ku soo noqda aanay waddanka dani ugu jirin intaasun bay ahayd oo ay dani ugu jirto markaa raggii murashaxiinta ahaa ee caddaatay inay murashaxiin yihiin ee 3 murashaxa ahaa inaanu aragno markaa cabdiraxmaan cabdullaahi uu yahay ka ugu habboon ee jooga meesha jooga waddanka lagu aaminay jamac muddo intee laga bada xisbiga ka tirsan marka xisbiga kulmiye ilaa bilowgii marka waxaa ilaa bilowgii anigoo isagoon xisbi ahayn baanu abaabulayaashii xisbiga iyo markii dambena noqday asaasayaashii ayaanu ka mid ahay ayaa markaas budugii baad ka mid ahay ilaa iyo maalinta ilaa iyo maanta xisbiga kulmiye way waxaad noo sheegtaa markii adigu aad doonaysay in musharax kale la keeno musharax gooni aad wadatay adigii markaas tiimkan isbedel doonku may cid aan ku idhaahdo qofkaasaan wadanay ma jirin laakiin waxaan lahayn nidaamkii dimuqraadiyadda ee xisbiga dhexdiisa hala dabaqo
way hallaysi soo sharaxo way dad cusubi haysi soo sharaxeen way sumadka daadna ka umac صح ka kala baxa oo laga doorto way qorshaha iyagu anuu sidaa أيها ayuu ahaa ee rag leh ama group leh hebel bay ahayd inuu isu soo sharaxo ma waxaan ahayn way jiraan dadkii kamu maran rag badan oo leader isu qalmaa jooga iyo hablaba dad badan oo aqoon-yahana baa jooga dad kartile baa jooga dad halgamaayada baa jooga oo xisbiga ku wada xisbiga ka mid ah marka de waxaanu door bidaynay qof intaasba leh miisaadkaa leh oo inuu isu soo sharxo meeshii dimuqraadiyaddii xisbiga gudihiisa laga dabaqo ما وافرستان هذه مدحونا ها waan isweydiinay oo waan de wixii tala ah intaa waan isiinaynay maraan wasiiraha iyo maraan lahaynba way soomaad karan waan isaragnaa dee madaxweynaha way rag soo wada shaqeeyana waan nahay ilaa iyo kulmiyadda وصح marka waan u soo jeedinay in bal cid cusub aynu ku eegno laakiin ma suurtagelin markii aad taahdeen waxaanu doonaynaa dheeg cusub musharax cusub ee adigood hor fadhiday muxuu markaa idinku yidhi may suurtagelin waxbaa dee caynkaasaan isnaa kaasaan yidhi kaasaan isnidhi ma habboonee noomay suurtagelin in aan murashaxa cusub keenno marka isaga madaxweynaha waxa u cadday tiisan baa u cadday miya madaxweynuhu dee wuxuu arkayay wuxuu lahaa miyaan xaq u lahayn laba teeran baan xaq u leeyahay buu madaxweynuhu dee isagu ku taagan yahay oo leeyahay laba teeran baan xaq u leeyahay labadii teeran baanan dhammaysanaya isaga dee doodiisu wataa way soomaad kale annaga waxaanu leenahay annaguna waxaanu lahayn madaxweyne intaasi inagu filan intaasi inagu filan 5 sannadood oo teeramkaagii horaa iyo 2 sannadood ee kororsiimada ahaa 7 sannadood inagu filane aynu waji cusub aynu keenno baanu door bidayno inta badan dadka ifafaaliya siyaasadda waxay yidhahdeen maxamed kaahin tiimkiisii baad ahayd oo waxaa jeclay musharaxka inuu maxamed kaahin noqdo markaas groupkiinana waxaa inta badan ayaa la sheegaya inaad markaasi markii 13kii October ay socon weyday inaad markaasi u aragteen inay noqon weyday marka mahungurigii maxamed kaahin iyo musharaxii maxamed kaahin aad doonayseen baa idin cuntami waayey horashada halkaa ku wadeen dee horta mid baan ku xasuusinayaa waxa la taageeraa nin caddaysto yidhaa waxaasaan doonayaa way soomaad kale maxamed kaahin dee wuu nool yahay waanu joogaa waana xisbiga rabo ka mid ahaa dee intuu meel isu soo taagay buu odhan waan tartamaya madaxweynenimaan u tartamaya markii dee ay taagnayd ee loo baahnaa ma odhan way marka haddaanu isagii odhanin dee annagu miyaanu u odhanaynay wuu tartamaya annagu waxaanu ka hadlaynaa un qof cusub oo aan madaxweyne ahayn laakiin maxamed kaahin muxuu isu soo sharax qofka dee ku khasbi maysid inuu soo doonto oo la tartamo madaxweynaha oo yidhaahdo madaxweyne waan doonayaa inuu tartamo markii xusbigii iyo waayihii aad ka diga rooteen xaggaad qabateen yaase taageerteen waxaanu taageeray murashaxa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro murashaxa xisbiga wadani ayaanu u aragnay inuu munaasib tahay in la taageero oo waddanka haddii la doonayo in horumar uu gaadho inuu dhibaatooyinka soo gaadhay ka dabaasho cidda ugu habboon ee maanta halkaa taagan ee u qalantaa inay tahay cabdiraxmaan baanu markaa taageernay ilaa iminkana taageeraynaa marka cabdiraxmaan iyo xisbigiisa miya soo cabdiraxmaan oo keliya maya iskuma ma lihin cabdiraxmaan iyo xisbigiisa ma moodinin dadku waxaa jooga ilaa 10 xisbi ururba ayaa tartamaya iyo xisbi iyo 3 xisbi adigu 13 xisbi miyaa 13 xisbi 10 xisbi waxa weeyaan waa 13 kaasa tartamaya cid waliba cid bay taageeri kartaa dee ay la jeceshahay xisbi ahaan inuu soo baxo qaar naga mid yahay kulmayaha ayagii ayay jecel yihiin inuu xisbi ahaan uu soo baxo qaar naga mid yahay wadani bay jecel yihiin inuu xisbi ahaan soo baxo qaar naga mid yahay ururada
kaahoo kale ayay jeceliin inay soo baxaan صح saddexdaasaa loo badan yahay واي ururada kalena dee dad badan oo taageersan way u jiraan هو صح runtaa wanaagsan أها markaa laakiin taanu ku midaysanna أها annagana midaysay maaha xisbigee baynu taageeraynaa iyo ururkee baynu taageeraynaa waa murashaxee baynu taageeraynaa مكان مشرح هو وكو عدي waa noocadii isagaana la howlgalaynaa jecel laha inuu soo baxo حسبي وقتها جلسي مسكحية مال جلسي ما تعشي إنه صوب حسب xisbigu haddii uu horta dee xisbiga dan baa laga lahaa danta laga lahaa waxa weeyaan inuu noqdo xisbi waddanka u horseeda horumar hogaamiya dadkaasaynu u dhisnay yacni waxaa u aabba ahaa dhismaha axsaabta iyo waxaan in nation building in waddanka la dhiso صح soomaad garan marka xisbigii de anagu kamaanaan tegin xisbiga iyagii ولي كل يوم مركا kulmiya weli waan ahay anigu waa layga saaray oo golihii fulintu go-aan buu gaadhin oo way ka baxeen واي laakiin anigu أها dee xisbiga maan odhan waan ka tegaya صح xisbiga maan odhan waan ka tegaya أها ma garatay marka dul istaagtid bogoska ee codeynaysid madaxweynuhuna waxa weeyaan waa wadani xisbiguna waa meel kale xisbigu waa kii hadba alla u garto waa kii hadba u garto way taa aynu kusoo gudubno maxaad sababta waa maxay aad maanta u malaynaysaa inuu maxamed cabdiraxmaan ciro uu yahay ninka quree maanta ku habboon ee markaasi hogaamin kara waddanka wallahi adeer waa dhowr waa su-aal wanaagsan dhowr siyaabood baan ayaan ugu malaynayaa anigu cabdiraxmaan waan aqaanaa sax shakhsiyaddiisaan aqaanaa kala xusbi un baanu ahayne rag asxaabana waan nahay annaga maalin baa guuladan nala wada qoray cabdiraxmaan adiga iyo cabdiraxmaan aniga iyo cabdiraxmaan Waay. guulada berberaan maalin nala ku wada qoray waay ilaa intaana waynu isnaqaanay waay horta cabdiraxmaan nimaan shakhsiyaddiisa aqaano weeye sax shakhsiyaddiisaas oo aan u aqaano nin hogaamin kara waddanka markay noqoto dulqaad markay noqoto himilaysi magaranaysaa ogta higsi iyo baa la yidhaha iyo himilo nin waddanka meel gaadhsiin kara hir markii la gaadhaba mid labaad hilaadin kara ayaan ku aqaanaa degan diblomaasiya haddii badankeeda yahay awood hogaamineed leh haddii badankeed leeyahay markaa nin ku habboon ayaan u arkaa oo lagu aamini karo waddanka intaa laga soo shaqaynayay imika dhowr iyo 30 sannadoodna dee ku jira mar horena loogu dagaalamay 34 sannadoodna imika ku taagnaa 33 sannadoodna ahaa gaarkiisa u taagnaa ee intaaba la dhisayey nin halkaa kala sii dabaalan kara oo horumar gaadhsiin kara oo awooddaa leh oo fishankaa leh oo cabqariyaddaa leh baan ayaad ilaahayna waxaan ka baryaa inuu noqdo kaa aan ii sawiran inuu noqdo baan ilaahay ka baryaa inta badan dee xaggee salaad ku xilmi laadaad oranaysaa jaamac madaxweynena wuxuu sharaxayaa cabdiraxmaan ciro xisbigiina wuxuu sharaxayaa kiisii hore ma odhan karo dee kaygii hore kaba soo qaad laakiin maad oran waddani baan codaynayaa ma odhan midna maad oran marka meel kalead ujeedaa marka maxaad labadan haddaad caynkan u aaminsantahay maxaad labadaba u siin weyday horta priority-gu maaha xisbiga imaka aniga imaha waay aniga waxa priority ah hogaanka waddanka ninka qabanaya murashaxa waay ayaa anigu xisbi baan ka tirsanaa waa sax sumaad galan xisbigaa aan ka tirsanaa dee waxaan u arkayay inuu xisbigii waddanka hogaamin karayay sumaad galan laakiin markii dee murashaxii soo baxay sidaan kuu sheegay waxaanu aragnay inaanu maanta kulmiye ku habboonayn inuu hogaamiyo qabto hogaanka waddanka sax xisbi dambe bal sii noqonayaa waxyaaba badan bay ku xidhantay waay haddii aanu sii noqon karayn yaa kale ku habboon waxay iyaduna dee waxyaaba badan bay ku xidhantay sax marka
taa maalinteeda ayaad sugaysaa ayuu sugayaa laakiin taani markaa aanu go-aanka ku qaadanay dadkana ku wada soconnaa ee gruubka iyaga ku midaysanna waxaa weeyaan taa murashax ayaad ku socotaan aynu soo noqonno iminka xagga siyaasadda wasiir baad ahayd la biloobay muuse la soo shaqeeyey wasaaraddii muddo 4 sano baad gacanta ku haysay waan malanaya maxaad oran kartaa wal inta wasaaraddaas iyo wixii maxaad qabatay baad oran kartaa wax la taabto horta mid baan ku sheegayaa institutionska dowladdu hay-aadkan dowladdu waa wax qori isu dhiiba iyo dee waddankuba qofba meel buu dhigaa soo gaarsiiyaa markaasuu ka kale u dhiibaa kaa kalena halkaasuu kasii qaadaa ama uu dee dib ula soo taraaraa ila way dhacdaa dad dee meel loo xusho heer madaxweyne heer wasiir heer guddoomiye oo hay-addii ama waddankii dee loo dhiibay halkii uu markii hore taagnaa dib uga soo taraaraa waa jira horta kow alxamdulilah ilaahay aniga wuxuu gu asturay inaanu dib ila soo taraani hore aanu usii waday halkii aanu ku imi shirkadaanu howlgelinay shidaal baadhitaan shidaal baa aanu sii wadnay soomaad garan oo 2 shirkadood baa 2 goobood oo muhiim ah ka baaday shidaal intii aanu joogay oo noo suurta gashay inaan hawshaa hawl ballaaran ahayd aanu hirgelino waa dhinaca bariga togdheer iyo gobolka saaxil dhinaciisa koonfureed iyo dhinaciisa bari labadaa goobood hortada shidaal baan ka baadhnay natiijo wanaagsanina way ka soo baxday waana tad keentay in facekii ugu dambeeyey baaritaanka shidaalka iminka hawshiisii lagu jiro oo ah qodis ceel marka waa intaad joogtayba intaasna suurta gashay intaas suurta gashay soomaad kale waxaa kaloo dee suurta galay macaadinta anagu waxaabaan xoogga saarayna iminkana filayaa in dee wasaaradda ku hawlantay weliye in shidaalku mudduu qaataa waa hawlo badan yahay macdanta waddanka loo jeesto dadka lagu baraarujiyey in macdanta waddanka macdan baled baa ku jirta waxbaanu ka ogaanay inkastoo aanu isku daynay waxaanu kaloo isku daynay inaanu exploration baaritaan xoog leh oo dhammaystiran oo xagga macdanta waddanka laga sameeyo laakiin xaggii siyaasadaha waxbaa isqabsan waaye intay markii hore noo suurta gasho heshiiska soo galnay baadana maaha wax xaggeena ka yimi wax duruufo kale ay keeneen bay ahayd markaa macdanta ayaan dadkii ku jirin marka waxba mad qabatay waxaan moodaa waqtigeenu gabagaba yahay kolley wasaaradda iyo shaqada ay qabatay iyo laydhka lafteeda waa arrimo waaweyn jaacow aynu gabagabadii baanu taaganahay barnaamijka waqti baa loo kacay doorasho xisbigii aad ku jirtay ee aad aasaasha ka ahayd waxaa halkaasaad ka martay markaad fahmi weydeen madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse biixi cabdi 3 kelmadood adoo kasoo koobaya maxay dadku ugu codayaan maanta ciro ood kaga tagtay muuse waad mahadsan tahay waxaa xikmad noqonaysa waxay ugu codaynayaan wadankii oo meel dee maraya runtii aan laga filaynin inuu maro marka inaan taa lagu sii wadin horta inaan taa halkaa uu maanta maraya taraarka taraar baa dee wadankii ku yimi dhinac dhaqaale dhinac nabadgelyo dhinac gobollo dhan baa la waayay gobollo dhan baa maqan markaa dee dib uu taraaray wadankii wey markaa horta taraarkaa in la qabto kow oo horumar lagu bedelo horta taas waa qodob wey ta labaad qodobka kale loogu codaynayo waxa weeyaan walaalaynta bulshada oo balinteenna soo hadhay gobollo way tageen inkastoo tegitaanka aan ilaah ka baryay inaan noqonin mid deerbinantay way isbedbedeshaayo
waxaad mudday siyaasadda meel ma taagnay berito waxaa laga yaabaa in duruufuhu caddayn caafimaadeen dhammaanteedna wada barto oo dibba la isugu soo noqdo waa suurtagal laakiin inteennaba horta imika joogtaa in aanay sii kala firdhoobin dib la isugu tolo oo walaalayn horle laga sameeyo taasna waxaa keeni karaa sidaan filayo weji cusub iyo tiib cusub oo gacanta ku qabta waddankii oo ka shaqeeya markaa dib noolayntii walaaltinimada Soomaaliya taasna waa saddexaad waxa weeyaan dhaqaalaha waddanka inkastoo ku jiro waxyaabaha taraarka wuxuu u baahan yahay in la xulo dadkii munaasabka ku noqon lahaa inay waddanka dhaqaalihiisa nation building baa lagu jira war waddanka inaanu dhisano maaha nin jeclaysi qof jeclaysi maaha cid hiilin maaha cid baa la nacayaa maaha waddan baynu doonaynaa inaynu dhisno uga turi mayno qofkii ma garanaysaa aan ku habboonayn dhismaha waddanka inaynu u sheegno hada maa yimshi taay socdayso marka war waddanka waxaa dhisi karaa waxa weeyaan bal tiim cusub yaa aragnay imanka 7 sannadood tiimkii joogay tiim cusub oo uu hogaaminayo murashaxaas cusub ama murashaxa xisbiga wadani inuu waddankii qabto oo dhaqaalihii iyo dhismihii waddanka iyo dhismihii ka soo dhaqaalaha جمع عادي أضد ما هسنتي وقت النص وهرتي حنا رجينا نقول مش هنمرتد إن شاء الله دير هيك كده خير بنكون شيء وحن برنامج كده كسو كوبيا جامع حاج محمود عيال عمر كاسي هاوسير كوري مع أنتي تمرتها جمهورية الصوماليلاند عمر كاسي كحب ورمي سياسة ضمانته سومالاني مريسهم وأنا وأخذ الدر برنامج كده يلدي هني أنت المركز كلمة كل منه وأنا قاعد له أمانة الله وأمانة رسول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.